taliyaha ciidanka debdemiska gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Ibrahim oo maanta warbaahinta kula hadlayay hotel cafe ee magaalada Burco. Taliyaha ayaa shaaciyay inuu gabi ahaanba iska casray xilkii uu hayay, isagoo sheegay inuu sabab darteed iskaga casray xilkaasi. Waxaana hadaladiisii kamid ahaa: Bismillahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. 12 bishii tobnaad 2017 waxaan iska casray xilkii ahaa taliyaha ciidanka debdemiska gobolka Togdheer, anigoo aad ugu mahad celinaya xukuumaddan garwadeenka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxaan isaga casilay sabab badan aawadood, iyadoo oo wixii noo magacaabay ay noqotay oo ololeynta xisbiga kulmiye ee aanay ahayn u shaqeynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. markaan arkay in ay noqotay oo ololeynta xisbiga kulmiye, waxaan go'aansaday aanan u shaqeynayn qaranka, aan u shaqeynayo xisbiga kulmiye, inaan iska casilo gabi ahaanba xilkii ahaa taliyaha ciidanka debdemiska gobolka Togdheer, anigoo u mahad celinaya intii aanu soo wada shaqeynay ciidanka debdemiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan aad iyo aad uga xumahay in loo adeegsado ciidankii qaranka iyo dawladihii laamihii dawladaha ee madaxa banaana sida shaqaalihii oo kale in loo adeegsado ololeynta xisbiga kulmiye, isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saaray dikreeto in aan u ololeyn karin laamaha dawladdu xisbiyada qaranka ay isma yihiin. haddana waxaa dhacday oo annaga nagu amray haddaanu nahay ciidanka debdemiska, gaar ahaan aniga, inaanu u ololeyno xisbiga kulmiye. waxaan go'aansaday markay noqotay inaan u ololeeyo xisbiga kulmiye iyo inaan u shaqeeyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inaan u shaqeeyo anigoo shiciba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aan ugu shaqeeyo inaan soo saaro ciddii qarankan wax u qaban lahayd, oo aanan u shaqeyn cid dan gaara kale qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan baaq dheer farayaa oo u dirayaa bulshooyinka reer Soomaaliland, gaar ahaan shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u shaqeeya laamaha dawladda, waray dikreetadii raaca madaxweynaha qaranku idin faray oo iska daaya u shaqeyntan loo shaqeynayo xisbiga kulmiye. xisbiyada qaranka idin sinaadaan. waxaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayaa war sida aan uga tanaasulay markiinu nagu qasbay inaanu u ololeyno xisbiga kulmiye, waar uga tanaasula oo qarankeena aynu danayno haddaynu dhalinyaro nahay, oo aynaan dan gaara inaan lahayn. dawladda ku jira inaad kulay sida aanan cadaynin ciiday maya, laakiin way jiraan in nagu qasbay oo leeri u ololeeya xisbiga kulmiye annagoo ciidan. waa Shaakir Cabdi Axmed, telefishinka caalamiga SBS magaalada Burco.